sida muuqata maamulka gobolka Banaadir waxaa ka taagan fashil amni iyo mid siyaasadeed oo u muuqda mid la isugu qanacsan yahay maadaama aanay muuqan isla xisaabtan dhab ah oo lagu sameeyo madaxda xilalka shacabka loo dhiibay si ay bulshada ugu shaqeeyaan. isla xisaabtan la'aanta ka jirta mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa sabab u noqotay mas'uul kasta xafiiska uu ka maamulo qayb ahaan gobolka inuu ka samaysto wixii uu doono cidda uu rabana uu shaqo ka siiyo, taasi oo meesha ka saartay fursado badan oo shaqo ah oo ay heli lahaayeen dhalinyaro waxbaratay oo jaamacadaha dalka ka soo baxay. siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaanan ka dhex muuqan doorka shaqo abuurka dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee dalka, taasi beddelkeeda madaxda gobolka ayaa juhdi badan ku bixiyo ka qaybgalka xaflado loogu sacaabatumo dowladda dhexe ee dalka. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yariisow ayaa noqday mas'uulka ugu badan ee ka qayb gala xafladaha soo dhaweynta iyo sagootinta ee ka dhaca gobolka Banaadir, waxaana toddobaadkiiba suuragal ah in ilaa iyo 10 xafladood uu kaga qayb galo degmooyinka gobolka. dadka reer Muqdisho ayaa u baahan waxqabad amni oo buuxa, dib u dhiska wadooyinka, dib u dhiska cisbitaalada, goobaha waxbarashada iyo helitaanka biyo nadiif ah oo degmooyinka gobolka ay ka wada helaan maadaama ay yihiin canshuur bixiyaasha. waxaa xusid mudan dhaqangelin la'aanta awaamiirta ka soo baxda xafiiska duqa Muqdisho inay qayb ka tahay fashilka ka jira siyaasadda gobolka Banaadir, maadaama awaamiir kala duwan uu soo saaray duqa Muqdisho aanan la ogeyn halka ay ku dambeeyaan, kuwaasi oo kala ah in laga guuro dhismayaashii jardiimooyinka dowladda hoose oo ganacsato ay dhisteen, xoolaha nool ee Muqdisho dhex wareega in laga aruuriyo, suuqii Cali Boolay oo guryo gaar ah laga dhistay in dib loo soo celinayo oo duqa Muqdisho uu ballan qaaday, iyo amarkii ugu dambeeyay ee ahaa in laga guuro dhulkii xerada ex-marinaayada. dhammaan awaamiirtaasi oo aanan fulin ayaanan la ogeyn meesha ay ku dambeeyaan. duqa Muqdisho ayaa toddobaadkii la soo dhaafay sheegay inay ku dadaalayaan in dhalinyarada door muuqdo ku yeeshaan horumarka caasimadda iyo hanaanka siyaasadeed ee dalka, balse hadalkaasi mid la mid ah ayuu dhowr mar hore u sheegay oo aanan waxba ka hirgelin. sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen horumarka caasimadda. runtii magaaladan waa magaalo oo barisamaadkii ahaan jirtay magaalooyinka ugu horumarsan adduunka. wax waagaas hormariyay inay ahaayeen dhalinyaradii waagaas joogay. maanta oo duruufo dalka maraysana waxaan rabnaa in dhalinyaradu ay door hogaamineed ka qaataan dib u dhiska dalka iyo horumarinta caasimadda. annaga waxaan wadnaa qorshe ballaaran oo sidii bilicda caasimadda loo soo celin lahaa, taasna dhalinyarada la'aanteed ma noo hirgelayso. marka waxaan rabnaa inaan idiin abuurno jawi aad ku shaqays kartaan, ku horumarin kartaan, isla markaana aad uga fikiri kartaan sidii dhalinyarada ay u heli lahaayeen. inkastoo ay muuqato fashilka ka jira hoggaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa duqa Muqdisho si uu bulshada isaga jeediyo wuxuu xasilooni darada ka taagan siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo uusan magacyadooda sheegin. laakiin xaqiiqada dhabta ah haddaan u gudubno oo caqabadaha caasimadan haysato amnigeedii sidii la rabay uusan mar walba u noqon ay gobollada kale u noqdeen. runtii caasimaddu saan kuu sheegay dad badan baa ku nool, laakiin haddana dhaqan waxaa jira oo siyaasiyiintu abuureen oo la siyaasadeynayo wax walba, amnigii la siyaasadeynayo, siyaasiyiin xaasidnimo iyo xumeyn maamulka hadda jira ha dhaco oo ha ku guul daraysto howlaha uu hayo. waxaa jira dhaqan muddo 30 sano soo jiray oo dhalinyaradan laga yaabo inay kusoo koreen oo ahaa mar walbaba loo dhexeeyey ama hogaamiye kooxeed ama burcad ama qabaa'ilo dad un isdagaalayo. marka qoys walba isla alle dagaalkii ku saameynayna iska gaabso. tiyaa lagu soo koray lagu koray, laakiin hadda lama joogo waqti la dhaho iska gaabso oo shabaab oo ku dilayo dadkaaga baabi'inayo iyo dowladdaadii iyo booliiskii oo aad ha u dhawaan booliiska daa u dhawaato shabaab ku arkayo ama laguma jiri karo. iyo kooxahan argagixisada oo dadkii argagax iyo cabsi gelin. waxyaalahaas horta Muqdisho sababtoo amnigu uga hana qaadi la'yahay ay ka mid tahay.
haddaana annagii oo shacabkii fahminna xalkii hadhow lama wada helayo. isla xisaabtan la-aanta ka jirta maamulka gobolka banaadir ayaa door u furtay in maamulada degmooyinka ay sameeyaan arrin ay ka arkeen duqa muqdisho oo ah inay iska soo duubaan muuqaalo ay ku nadiifinayaan hal wado taasoo ay kusoo koobaan waxqabadka degmo dhan iyo dadkeeda oo ay mas-uul ka yihiin kadibna ay kusoo bandhigaan baraha bulshada iyaga oo ku muujinaya inay shaqo adag hayaan. shacabka reer muqdisho ayaa u baahan helitaanka madax si dhab ah ugu shaqaysa sidoo kalena ay ka helaan daryeel amni oo wanaagsan. bishan sii dhammaanaysa abriil waxaa muqdisho lagu dilay 3 dhalinyaro mooto bajaajlayaal ah waxaana dilkooda geystay askar dowladeed ilaa iyo haddana maamulka guddoomiye Yariisow kuma guuleysan soo qabashada xubnihii dilka geystay si cadaalada loo marsiiyo maadaama uu ballan qaaday in la soo qabanayo dadkii ka dambeeyay dilalkaasi.